su-aasha labaadii waa su-aal dheer. qof baa soo weydiinaya wuxuu leeyahay nin macalimiintayada ka mid ah baa wuxuunu yidhi ilmaha zinada ku dhashay ama soomaalidu wacalka ay tiraahdo waa ahlu naar, xataa hadduu inta hore fiicnaada khaatumada ka xumaanaysa. waxyaaba badanoo ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinin uu ka mid yahay buu noo soo dariishaday bay yidhaahdeen. iyo cutullin bacda daalika zaniimintii suuratu alqalam ama nuun walqalami maa yasturuunahay. masaladaasi ma sax baa buu leeyahy saa'ilku mise ma aha? masaladu qaطcan sax maaha. qur-aanka iyo sunnadu cutullin bacda daalika zaniimin nin bay tilmaamaysay, tilmaamo kaloo badanna laha. tilmaamaha uu lahaana falaa tudic kula xallaafin mahiinin hamaazin mashaa'in binamiimin mannaacin lilkhayri muctadin ahiimin cudullin bacda daalika zaniimin an kaana daa maalin wa baniina. dadka nabiga la dagaalamayay beeniyeyba ceebihiisa laga sheekeynaya. ceebihii mid ka mid ay ahayde iyadaa sababteed naar lagu gelaya aayadkaasi ma dhihin. ina alxalaala bayinun ina xaraama bayinunna kama hadlayo ilmo waladu zina kama hadlayo. wuxuu ka hadlayaa camalka dadku samaynayaan, kasabka iyo risiqay samaynayaan, erayada ay ku hadlayaan. ina inay xaaraan tahay way caddahay, ina inay xalaal tahay way bannaan tahay way caddahay. ina mugdi iyo madmadow baa ku jira. wixii madmadow ku jira iska daaway, ee wixii madmadow ku jira xataa naar lagu geli maaha. xadiidkaas iyo aayadkaas midna meeshoodii ma aha. qodobka labaadii kitaabka iyo sunnadu waxay inoo caddeeyeen qof waliba aakhara waxaa lagula xisaabtamaya wixii isagu uu sameeyo, wax dad kala sameeyeen maaha. ilahi wuxuu uhi walaa taziru waasiratun wisra ukhra, mid dembaabtayadu dembi kale ma qaato. ilmahani hadduu sidaa ku dhashay isagu dembi ma gelin, dembiga labada waalid baa galay. labadii galay dembigoodii isaga ma saarna. naf kastana waxay iyadu kasbatay baa aakhara lagula xisaabtamaa. kullu nafsin bimaa kasabat rahiina. hadduu isagu wanaagsanaadana jannuu geli, hadduu xumaadana naar buu geli ama mudan. man camila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'minun faulaa'ika yadkhuluuna aljanna falanuxyiyannahu xayaatan tayiba. iimaan iyo camal saalixa qofkii laga helo way. ilaahay agtiisana miisaanka iyo camalka saalixa la miisaamaaye nasab iyo abtir iyo aabba ma leedahay mise melihidii yaa ku dhalay, miisaanka xasanaadka iyo sayi'aadka meelna kama gasho. saas darteed intaan ogahay nusuusta kitaabka iyo sunnadu iyo ijmaaca culimmadu waxay isku raaceen qofka in isaga wixii uu kasbaday lagula xisaabtamayo. hadduu xumaana xumaantii lagu jazaynayo, haddii uu wanaagsanaana wanaag lagu jazaynayo. faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah. marka miisaanka laysa saarana faman haqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum almuflixuun waman khafat mawaasiinuhu fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun ama bimaa kaanuu biaayatina yadlimuun. intaa marka laga soo gudbo axaadiidta iyo aayaadka ninkaa sheega maaha, laakiin laba arrimood ama laba xadiid baa mudan munaasabadan in la dul istaago. xadiid wuxuu oranayaa waladu zinaa sharu halaatha. midna xadiid wuxuu ahaa laa yadkhulu ljannata markii la soo tiriyey walaa waladu zaniyatin, jannada ma galaan khamri qof ka shaqeeya, qof mannaan oo gallad sheegta, qof caaqul waalideynah, qof qadarka beeniyey, iyo qof waladu zaniyatinah. ama xadiidka sharu halaathati waladu zinaa sharu halaathati ah marka la yidhahdo wuu ansaxay walow khilaaf ka taaganya inuu sugan yahay iyo in kale. culimmadu waxay isku raaceen in sidaa lafdigu u muuqda uusan macnihiisu ahayn. kadib fasirkiisii bay isku qabteen. waxay yidhahdeen shardigu qaarkoodii hadduu wixii ay sameeyeen sameeyo, wixii ay ku dhaqmeen iyo zinadii isagana dhaqan hadduu ka dhigto, isagaa labadii zinada ku dhashay ka xun. waayo isagoo si khaldan ku dhashay buu sidii khaldanaydna u dhaqmay. qolo waxay yidhaahdeen waa looga cabsi qabaa inuu noqdo sharu halaathati baa looga cabsi qabaayo
ilmuhu markuu sidaasoo kale bulshada ku noqdo ay bulshadu wada cayriso ay bulshadu wada liido uu ka dhex baxaayo waxa xumaatada ah buu la qabsadaa baa looga jeedaa. iyo intaa labadaa midna ma ahane saddexdoodu dembigii la galay midhihiisii wey. midhuhuna inuu dembi yahay macnaheedu maaha. amaa xadiidka laa yadkhul jannata walidu zaniyatin waxay culammadu u badan yihiin inuusan asixin. ninka cabdillahi bin camr alcaas ka warinayana jaabaanna uu yahay nimaan xadiidkiisu saxiix iyo xasan midna gaarin. culummada tiri waxaas waa xasan sida sheekh albaani raxmat ullaahi caleyh rag kale loo tiiriyo insaxat inisba dooda ee asaxad. iyagu waxay leeyihiin xadiidkani laba macno labadaba waa macaani baa lagu fasiray ee labadaba ka mid tah. waladu zaniyatin ma aha macnaheedu kii zinada ku dhashay, waa midkii dhaqanka iyo caadada ay u noqotay wey. sida midka waxaana siyaaqa xadiidka marka la eegana macnaha waa u dhowaanayaa. mudminu khamrin waa qofka khamrada joogtada u caba. caaqul waalideynka waa qof camal sameeyey oo caasinimada waalideynku ay caado u tahay. mukadibun biqadarin waa camaluu sameeyey. mannaanun cadiyadiiyo sadaqada uu bixiyaadka u galladaysta waa waxay qof ay dabeecad u noqotay dembiyadaas. waladu zaniyatin wuxuu la mid yahay bay dhaheen ibnu dunya qofka markii laleeyahay qofku wixii uu aada ugu maman yahay ibnu ri'aasa iyo ibnu dunya iyo ibnu zina waa la yidhaahdaa. marka qofka waladu zaniyatinka ku dhashay ma ahane ka dhaqanka iyo dabeecadda ay u tahay baa looga jeedaa. siyaaqa xadiidka kuwa kalena carabna waa isticmaashaa. tafsiirkan imaamu taxaawi raximah allahu tacaala kitaabkiisa sharxu mushkil ilaathaar buu keenaya. culimo badanna waxay leeyihin tafsiirkaasaa saxan haddiiba xadiidku asaxo. qolana waxay leeyihin maya sida xadiidka hore kalaan dhihi karnaayo waladu zaniyatin waxaa weeye hadduu dhaqankii zinada yeesho isaguna dabeecaddii iyo sidii inuu ku dhaqmo uu keeno janno geli maayo waay. waayo mujtamacuna saamayn buu leeyahay. isagana markaa camalkiisa loo qabtay laakiin qofaan camal samaynin oo loo qaban ma jiraan. haddiiba isagoo yaruu dhintana xaddulbuluuq iyo takliifuu gaaroo naar loo geeya ma lahano khadamu ahliljannati buu ka mid noqonaya. wabillahi towfiiq.